السلام عليكم. joogtayntu waa aaladaha ugu awooda badan ee wax lagu xaqiijiyo, caado lagu samaysto, qofkuna uu isbedel iyo korriimo naftiisa ugu horseedi karayo. waxaa la odhan karayaa waa foundationka ama waa aasaaska horusocodka naf edbinta iyo korriimada joogtada ah ee qofku uu naftiisa ku horumarinayo. mar kale waxaa la yidhaahdaa waa bridgeka iyo buundada u dhaxaysa qofku halka uu taagan yahay iyo meesha uu doonayo inuu gaaro. without consistencygaas, without joogtayntaasi, qofku meesha uu joogo kama dhaqaaqi karayo, mana gaari karayo halka uu doonayo uu hiigsanayo. marka waxaan rabaa muuqaalkan inaan maanta kaga jawaabo, haddii ilaahay yidhahdo isku dayo, sidee baan wax u joogtayn karaynaa? intaanan ka horgelin sidee baan wax u joogtayn karaynaa, kahor waxaan rabaa inaan tilmaamo maxaa horta qofka joogtaynta ka hortaagan. yani waa su-aal mugtahay mudan in la isweydiiyo. joogtayntu why is it hard? maxay u adag tahay? maxaa adkeeya qofka inuu wax joogteeyo? intaa fariimo runtii tirabeela ayaa isoo gaadha markaan tadriibka bixinayo, tababarada bixinayo, markaan mawaadiicda ka hadlayo, barnaamijteeda gaarka inta badan aad baa laysoo weydiiyaa. coachinka inta badan aan bixiyo marar fara badan runtii waxay la xidhiidhaa qof doonaya meel inuu gaadho, haddana aad arkaysa inay consistencyga uu ka cabanayo. consistency wuxuu noqday marka cudur weyn iyo xanuun weyn oo dhammaanteen ina wada dhibaya oo aynu ka wada cabanayno. consistencygu maxaa adkeeya? why consistencygu ama joogtayntu ay qofku ugu hirgeli laadahay? ta koowaad, mar kastoo aan eego underlineka, waxa layerka hoose ama lakabka hoose ee qofka ku kalifaya ama ku keenaya qofka inaan wax joogtaynin, waa inaanay qofka u caddayn waxa uu qabanayo, waxaan uu rabay inuu joogteeyo, inaanay specific ahayn ama aanay xadidnayn, inaanay waqti ku xidhnayn. eg marar fara badan waxaad arkaysaa qofku wuxuu ku leeyahay waxaan rabaa inaan miisaanka iska rido, waxaan rabaa inaan wax akriyo, okay, waxaan rabaa inaan konton buu akriya sanadkan. ma cadda, ma xadidna, waqti kuma xidhna, ma jajabna, oo yani wax attainable ma aha. marka mar kasta oo aanay claritygu muuqan, mar kasta oo aanay caddayn oo waadixnimadeedu waxan aad qabanayso iyo saad u qabanayso iyo waqtigaad bilaabaysa aanay caddayn, waxaad horseedaysaa ama aad barrier iyo caqabad u samaynaysaa wixii aad joogtayn lahayd. waayo mar kastoo ceryaamo ay jirto, mar kastoo aanu qofku humaag uu kaga jiro sidii waxaan u qaban lahaa, waxaa abuurmaya barrier iyo caqabad qofka ka hor istaagaysa inuu wax dhaqaajiyo. wixii wuu rabaa laakiin barrier baa jira. marka ta koowaad waa taa. ta labaad, qofku wuu rabaa, wuu iska rabaa, wuu danaynaya. waxaa laga yaabaa inay arrintan marar fara badan aad maqasheen, laakiin believe me, marar fara badan waxyaabaha aynu leenahay inaynu qabanaan rabnaa, waxyaabaha aan leenahay inaan samaynaan rabnaa, waxyaabaha aan hiigsanayno oon doonayno inaan nolosheena kusoo kordhino, in badan oo kamid ah waxa weeye waa wax aynu hareeraheena ka aragnay, waa wax aynu ka aragnay dad samaynaya, laakiin inaguna iska jeclaysanay. waxaa la yidhahdaa, waxaa jira theory la yidhaahdo numeric theory. numeric theory wuxuu tilmaamayaa in bani aadamku badi maanta, maadaama casri social media oo dadku Instagram iyo Snapchat iyo Facebook qof walba wax qurux badan noloshiisa soo bandhigayo, bani aadamka baahi waxaa ku jirta ah inuu wax wanaagsan u jeclaysto, uu rabo inuu helo. laakiin marka waxaa leedahay walahi kaana waa rabaa. tusaale, dukaan markaa soo gasho, meherad dhar badan ay yaalaan iyo saacado iyo kabo iyo, waxaa laga yaabaa inaad soo gashay shay inaad iibsato markaa aad ugu baahan tahay. laakiin dukaanka waxa yaala indhahagu marka ay ku bataan oo nolol lagu ifiyo, halkan saints lagu daaro, waxaa kuu muuqanaya waxyaabo qurux badan ood u wada baahan tahay, doonaysa inaad wada heli lahayd. dukaanka 80% wax yaala waad soo qaadan lahayd, laakiin waxa aad ugu baahida badan tahay waa hal shay ama laba shay oo markaa kugu taagan inaad soo hesho. si lamid weeyaan nolosha, waxyaabaha inta badan aan doonayna inaan helo waxa weeye waxaan hareerayna ka aragno waa qurux iyo wax ina soo jiidanaya, aynu doonayna inagu nolosheena inaan ku soo kordhino. wax xun maaha, laakiin taas marar fara badan waxay saameyn ku yeelataa in aynu ahdaaf u dhigano, niraahno inaan xaqiijinaan rabnaa, isku dhibno wax laga yaabo inaynan aad ugu baahnayn, ama meeshaan u soconno aanay ahayn wax daruuri u ah oo aan align ku ahayn ayay u badan tahay. marka
inaanu qofku sababta waxaan u rabo aanay waadix u ahayn ama maahe haddaan si kale u idhaahdo waad rabtaa waxan laakiin marar fara badan maadaama distraction fara badan nolosha ay jirto waxaa kugu dhacaysaa inuu sababtii kaa lunto sababtii inay kaa lunto iyadana waxaad baanta markaan dib inoogu soo noqoto waan ka hadli doonaa insha allah bin raxmaan sababka saddexaad waxa weeye oo runtii aad caqabad ugu noqda isagana barrier ku noqda qofku inuu wax joogteeyo waxa weeye waa overwhelming expectation ama expectation qofku inuu hawlo fara badan isku qaado perfectionism uu doonayo inuu si wanaagsan u rabo inuu qabto labada waa la kala saari karaa actually overwhelming gooni baa loo saari karaa high expectation gooni baa loo saari perfectionism gooni baa loo saari karaa walow perfectionismku dhamaystiran doonnimadu iyo filashada sare ay iswaaf barar qaarkood isleeyihiin haddana mid walba gooni baa loo istaajin lakin waa isku xidhina marar fara badan marka aad doonayso expectationkaaga filashada aad u weyn tahay oo aad wax badan isku qaado oo aad doonayso waxayna sidii aad rabtay inaad u samayso mar walba u samayso culays baad isa saaraysaa stress baad isku abuuraysaa anxiety baad isku abuuraysaa idan marka adiga waxaad isku abuuraysaa kalifaysaa inaad yeelato emotions baaxadegaya oo u fiirso marar fabina waxaan u baahnaa energy iyo tamar iyo xamaasad aynu wax ku qabanno wax ku hirgelino laakiin marka aad expectation sare iyo filashooyin iyo dhamaystiran doonnimo wixii inaad doonayso sida perfect aad u qabato hawlo fara badan aad isku qaado maxaa kugu dhacaya already culays baa ku saaran marka horuma dhaqaaqaysa waa gaari la rabo inuu dhaqaaqo laakiin tankiisii la saddex jibaaray marka ma dhaqaaqi karaysid consistency-guna waa maxay iyadoo marka hore ay adag tahay in la socdo ayaad haddana aad xamuul isii saartay marka ma dhaqaaqi karaysid arrinta afraad ee keeni karaysa waxa weeye distraction and lack of focus jeediyayaasha iyo dhabqiyayaasha nolosha oo kugu hareeraysan iyo diirad saaryadaada iyo lunta focuskaaga iyo luma waxaynu ku nool nahay duni ay buux dhaafisay distractionka iyo jeediyayaasha iyo dhabqiyayaashu ay buux dhaafisay maanta aad bay u adag tahay in uu qofku gaadho yool muddo dheer uu u soconayo u socdaalayo raacdaynayo aad bay maaragtay u adag tahay sababta waxa weeye distractionka nagu hareeraysan jeediyayaasha iyo dhabqiyayaasha nagu hareeraysan badi siday u badan tahay waxyaabaha inagu hareeraysan ina jeedinaya inaga mashquulinaya waxii aan u soconay ee joogtaynta nagu adkaynaya waxa weeye waa wax kulli aynu dopamine degdega ku helin instant gratification degdegan u helan facebook baa soo gashay instant gratification baad ka helaysaa Netflix baad daaranaysaa instant gratification baad ka helaysaa TikTok baad gelaysaa instant gratification baad ka helaysaa yani farxad yareedaad u baahnayd to go ahayd horaad ka qaadanaysaa waxaan kale laakiin aad doonayso inaad gaadho buuggan aad doonayso inaad akhriso weightkan aad rabto inaad iska rinto businesskan aad dhisayso koorsadan aad dhisayso buuggan aad qorayso it's tough wax wal oo kaloo kugu hareeraysan wuxuu ku leeyihiin halkan ay ka dhowdahay nacnac iyo chocolate iyo ice cream baa meel walba yaala right haddaynu si kale u nidhaahno marka taf weeyaan idan marka mid kamida sidoo kale waxyaabaha inagu adag tahay inaan wax joogtiin waxa weeye distractionka oo fara badan inagu hareeraysan oo focuskeeni markaa iyo diraasaaryadeeni luminaya ugu dambeyn arrinta shanaad ee keenaysa inaynu joogtayntu inagu adkaato waxa weeye self talkgeena ama sidaa nafteena ula hadalno nafla hadalkeena oo taban maskaxdeenu in badan oo kamid a arrimo negative ah kusoo noqnoqdo especially weliba waxay ugu daran tahay marka aad doonayso wax marka aad haysan wax qurux badan oo doonayso noloshaada inaad ku soo kordhiso oo kaa fog oo noloshaada wax ka bedelaya markastoo aad himiloto markastoo aad han yeelato markastoo aad riyo yeelato markastoo aad ahdaaf iyo yoolal iyo himilooyin aad samaysato oo tiraahdo ku dhaqaaq waxaa soo baxaya oo kor u soo kacaya negative fikrado fara badan oo taban oo tan iyo yaraantaadii soo samaysmayey oo iska yaalay oo marka uun soo kacaya oo xarkaa furanaya kuwaasaa marka ku qarqoomaya qofka ku qarqoomaya oo u dhegaysanaya haddaad kuwa dhegaysato oo negative thoughtskaaga dhegaysato waxaad ma samayn karaysid kanaa jirta excuseyo marmarsiyooyin halkan bay ka dhacday halkan bay waxa haddaad dhegaysato ood ku celceshato iyadaa ku fadhiisanaysa iyadan waxay kuu noqonaysaa dabar kuu diida ka hor istaaga consistency inaad wax joogtayso iyo sidoo kale self image kaaga inaad waxaan aad u arkin inaad u qalanto inaad waxaan gaari karayso adigu saad isku aragto self worth kaaga kalsoonidaada hooseysa iyadan waxay kamid tahay caqabadaha ka hor istaagaya inaad gaadho ama aad joogtayntaada aad joogtayso yani joogtayntii la joogtayso dabcan ya haddaba
aan ilaa 5-6 tallaabo idin wadaago aan isleeyahay qofku way u fududayn karaysaa inuu wax joogteeyo qaar ka mid ah si toos ah waxay ula xiriiraan caqabaadka saan u furfuri lahayn caqabaadka koraan kusoo xusnay saan u furfuri lahayn takood waxa weeye inaad horta ku bilowdo sababta waxan aad u rabto markastana waad u baahan tahay inaad xasuusato it's better inaad sawir waxa aad doonaysaa oo adiga kugu saabsan inaad vision board samayso vision board wax kala ma aha kaliya wuxuu ku xasuusinayaa waxan wuxuu prime gareynayaa khayaalkaagu godlaya mar walba uu ku xasuusinayaa maskaxdaada qaybtaada ahdaafta iyo waxyaabaha doonaysa inaad qabato mar walba distractionka faraha badan mar walba uu jeedinayo ayaa mar walba xasuusanaysaa inaad mar walba is xasuuso mar walba dib ugu noqoto ahdaaftaada dib u eegto dib u qiimeyso waqti fadhiisato 2 daqiiqo 3 daqiiqo 10 daqiiqo 20 daqiiqo fadhiisato maalinkii aad dib u eegto wixii aad doonaysay dib u xusuusto sababteed waxa aad doonaysay ilaa aad dareento goosebump ma maxay ilaa aad yani jirrac dareento waxan markaad gaadho noloshaada wax uu ka bedelayo waxaan rajaynayaa inay de ahdaafta aynu doonayno inaynu gaadhno waxyaabahan doonayno inaan xaqiijino aynu joogteyntan aan doonayno inaan joogteyno waxaan doonayno inaan xaqiijino nolosheena kusoo kordhino soo ma inay marka waxaasi aad dareemayso wuxuu sidiisaba la doonayo qofka baniaadamku doonaya markastoo emotionskiisa ama laxawiyadiisu iyo dareemadiisu ay la falgelsan yihiin ay xoogan yihiin waa markasta uu helayo awood riixaysa oo waxa iyadaa ku riixaysa drivena siinaysa talabaad waxa weeye inaad clarity samayso clarity markaad leedahay waxaan rabaa inaan wax akhriyo sanadkan waa riyo waa waxaad doonaysid laakiin markaad tiraahdid waxaan rabaa sanadkan inaan akhriyo 54 book مثلا lafteedu way badan tahay haddaad bilow tahay kama hadlayo haddaad qof horay wax usoo akhriyi jira aad tahay yes 54 baad akhriyi karsaa laakiin haddaad bilow tahay oo hadda uun ay ku bilaabmaysa inaad wax akhriso oo caadadeedii aadan lahayn waxaad u baahan tahay 12 book baan rabaa sanadkan inaan akhriyo haddii ilaahay yidhahdo bil walba waxaan akhrinayaa book baan akhrinayaa toddobaad walba waxaan rabaa inaan dhameeyo مثلا hadduu book 4 chapter ka kooban yahay chapter ayaan dhameynaya toddobaad walba maalin walba intana book baan akhrinaya waxaan bilaabayaa maalintan waxayna ku ekaanaysaa maalintan mar walbana aad xasuusanayso mar walbana aad isku soo celiso mar walbana ay hortaada taalo oo aad wixii kuu fududeynay marka aad samayso ya weight inaad miisaanka inaad iska riddo waa sidaas oo kale dhaqaale inaad sameynayso waa sidaas oo kale jaamacad inaad dhamayso waa sidaas oo kale business inaad asaasto waa sidaas oo kale cibaadadaada waa sidaas oo kale cilaaqaadkaaga wanaajiso waa sidaas oo kale yani you name it wax kastoo nolosha aad doonayso inaad qabato it has to be specific time uu ku xidhan yahay clear waa inuu ku yahay goolka waxay yidhahdaan crystal clear bay yidhahdaan sidii muraayadaha dhalada aad isku eegayso maartaye maxaa la odhan karaya muraayadda suuliga markaad gelayso aad isku eegayso markay dust saaran tahay oo bus ay saaran tahay ama ay ceryaamaysan tahay dee si waxaan isuguma arkaysid it has to be clear waa inay kuu muuqato waadix ay tahay tallaabo kastoo qaadayso along the way arrinta qodobka saddexaad waxa weeye inaad hawl badan isku qaadin dabcan qodobkan wuxuu furfurayaa qodobkii ahaa overwhelmingka iyo expectationka highga ah iyo perfectionismka intaba waxaa keenaya wax fara badan isku qaado baby steps qaad tallaabooyin ciyaalnimo qaad maxaa la odhan karayaa haddaad doonayso haddaadan hore wax u akhrin jirin caado akhris doonaysa inaad samayso maalintii hal bug akhri haddaad doonaysid miisaanka inaad iska riddo wax yar ku bilow birahaad qaadayso wax yar ku bilow socodka aad ku bilowda 20 daqiiqo ku bilow yani steps yaryar waxyaaba yar oo aanad ku guul daraysan karaynin naftuna aanay qiil iyo sabab iyo waxyaaba ay ku hor dhigto excuse ay ku hor dhigto aanay heli karin arrinta afraad waxa weeye routine abuuro routine waxaa la yidhahdaa consistencygu waxay ku bulaashaa routiinka ay jirto qofku wax u soo celcelinayo oo uu joogteenayo weliba gelinka hore is very important caado kastoo wanaagsan oo doonaysa inaad samaysato oo rabtay inaad joogtayso gelinka hore waayo enerjigaagii waa buuxaa go'aamada waaweyn ee dadka ganacsadayaasha waaweyn ama madaxda aba ay sameeyaan inta badan 12 aroornimo wixii ka horeeya duhurnimo wixii ka horeeya ayay inta badan go'aamadooda gaadhaan sababtuna waa maxay because energy ba ahdaysa tamartii baad haysaa xalaad seexatay saaka cuntaad soo cuntay kafee baad soo cabtay مثلا energy baad haysaa marka waxaad gaari kartaa go'aamo fiican waqtiga iyada ah wuu ku buuxaa bateriga telefoonkaaga waa buuxa haddii si kale aan u idhaahdo idan marka consistencygu wuxuu ku koraa ku bulaala routine inuu helo wax aad joogteynayso find out waqti waxaana doonaysa inaad qabato aad joogtayso aad doonaysa inaad routine ka dhigato ay soo noqnoqoto oo weliba caado ka horeysay aad ku xidhato
arinta shanaad waxa weeye very important ah aad ka muhiimka ah waxa weeye inaad hooyadaada dhisto identity-gaaga hooyadaada dhisto waxyaabaha runtii buuggii James Clear buuggiisa Atomic Habit uu ku soo kordhiyey aragtidii laga haystay caadooyinka sida ay u samaysmaan dabcan consistency-guna waa maxay waxaad consistent garaynaysaa ba joogteynaysa routine buu u baahan yahay baynu nidhi bimacnaa waxa weeye caado ku noqonaya waxaan inaad ka fikirin autopilot ku noqoto oo mar walba waxaad qabanayso oo resistance-ki faraha badnaa iyo caqabadka faraha badnaa ka hormarin inaan ka hormarin marka waxaad u baahan tahay inaad tirahdid this is part of my identity aniga ah qof wax akhriyaan ah haddaad doonaysa inaad akhriyo noqotid waa inaad haddaba aaminto ood qaadato tirado qof wax akhriyaan ah haddaad doonaysa inaad maaragtay weydkaaga iyo caafimaadkaaga waxaad tahay qof caafimaadkiisa ka fikirana qof healthiyaan ah haddaad doonaysa inaad maaragtay wax qorto qof qorayaan ah haddaad doonaysa inaad joogtayso inaad wax save garayso dhaqaale save garayso ilaa mu $10 ahaato ilaa mu $2 ahaato ilaa mu maxaa la oran karayaa kun shilin Somaliland oo ahaado waxaan leedahay waxaan rabaa waxaan ahay qof wax save garay qof wax weelayaan ah identity-gu aad bay muhiim u tahay identity-gu waxay qaabaysaa consistency-ga waayo consistency-gu way fududahay marka ficilkaaga iyo identity-gaagu ay isbarbar socdaan ficilku waa maxay waa waxaad joogteynayso identity-gana waxa weeye waxaad iska aaminsantahay oo waxaad leedahay waa nahay yes hadda waxaa la yaabaa inaad 100% ahayn laakiin waa nahay inaad isku aragto waxay halka yidhahdaan fake it until you make it fake nimo ku nooloo maaha laakiin fake it until you make it just believe inaad qofkan tahay rumee qofkan inaad tahay waxaanahay qof wax akhriya waxaanahay qof wax akhriya actually cagsigeeda inagu soo laabta yacni maxaan hore usoo tilmaanay mid ka mid caqabaadka inaga hor yimaadee barrierka ku noqdayna wax joogteen waa maxay self talkina sidaan isula hadal nafteena ula hadalno oo inta badan aynu niri negative weeyaan idan markaad identity-gan iyo hooyadana aad samaysato tirado qof wax akhriyaan ah ama aad doonaysa inaad wax save garayso tirado qof wax save gareeyo weeleeyaan ahay oo dhaqaalihiisa weeleeya oo aad doonaysa inaad maarata weight ka ridda ama cunto healthy cunto aad tirado qof yani wahaakada waxa weeye qof waxa weeye markaa waxay fududaanaysa ficilkan aad qaadayso inay barbar socoto hooyadaada laakiin ficilkaad qaadayso haddii ay waxa barbar socdo uu yahay negative thoughts iyo fikrado taban oo adigu iskula hadlayso oo dabcan aad aaminaysa marka dambana waxa kugu adkaanaysa markaa inaad hore u socoto identity-guna wuxuu qayb ka qaataa inuu shape gareeyo consistency-gaaga iyo dadaalkaaga hore socodkaaga arrinta lixaad accountability samayso accountability-gu ama qof kula xisaabtama qof wuxuu noqon karayaa qof aad isla shaqaynaysaan haddaad wax akhriso doonaysa aad wax isla akhrisaan haddaad gym doonaysa inaad gasho caafimaadkaaga iyo waxayso gymka kula gala socodka kula socda cibaadaadka kula waxeeya yani wax hadba aad doonaysid accountability partner qof kula socda oo saaxiiba oo hawshaa mar walba aad iskula jirtaan waayo mar kastuu kugu soo dhaco 90% waxyaabahan ka fikirna nolosha waxay la xidhiidhaan bani aadam imagine marka bani aadamka iyo dadka kula xidhiidha ee saaxiibadaada ee kugu hareeraysan marka ay yihiin dad u socda waxyaabaha aad doonayso iyagaa marka kugu soo noqdaan markastoo kugu soo noqdaana dantaadii iyo hawlahaagii baad xasuusanaysaa distractionkii baa kuu fududaanaya waxaagii baa wuduux kuu noqonaya mar walba waxaagii baad ka fikiraysaa maskaxdaadii bay kusoo noqonayaan halka maanta mid ka mid a caqabaadkiina ay tahay in mar walba distractionka faraha badan uu focuskeenaga leexinayo idan marka accountability qof kula xisaabtamo qof aad ka wada sheekaystaan waxaad baa doonayso inaad gasho ama maahe qofku soo xasuusiya waxyaabaan ku faraxsan waxaa ka mid a maanta buuggeygii khaladaadka barbaarinta ayay ii soo dirtay shirkadii daabacaysay koobigii ugu horreeya wayaan ee ifka arka ayaa ii yimi marka baan si fiican uga sheekeyn doonaa hadduu ilaa ihahdo buuggan markaan qorayey accountability waxaa ii sameynaysa Ibrahim Waaberi oo halkan aan runtii uga mahadnaqayo oo nin qoraaya ustaadan aad u jeclaa saaxiib aan nahay tababara buugaag fara badan leh qoray oo runtii dadka haldoorka ee Soomaalida ka mid ah chapter kasta waan u dirayay markaan dhameeyo waxaan lahaa chapterkan kuu soo diraya mar walba chapter dhameeyo chapterkan kuu soo diraya buugii saasaan ku dhameeyey kala hufidiisii editingkiisii inaan daba socdo inaan shirkadii daabacaysay hawlaha dhan aan sameeyna halkan waxaan uga mahadnaqayaa ustaad caamir maxamed oo runtii mar walba isoo weydiinayay waxaan ku yidhi isoo weydiiye mar walba buugii isoo wacaa wuxuu yidhahdaa wiigii marba isoo wacaa buugii xaguu maraya yani it's accountability runtii labada qof la-aantood oo accountability-ga buuggan way adkaan lahayd inuu ifka arko waqti badan bay qaadan lahayd inuu kusoo baxo idan marka accountability-gu aad buu muhiim u yahay
labada qodob ugu dambaysan kusoo gabagabeynayo waxa weeye mid waxa weeye waa ducada inaad ilaahay subxaana watacaala mar walba barido sadaad iyo hidaaya inuu ilaahay subxaana watacaala kugu sugo cali ibn abi talib radi allahu canhu baa nabiga u imanaya salaatu rabbi salam markaasuu leeyahay rasuulka low ii dartaaran waxay dheh ila tali dadkii nabiga sallam wuxuu leeyahay ilahay waxaad weydiisataa hidaaya iyo sadaad hidaayadu waxa weeye inaa ilaahay subxaana watacaala kugu hadeeyo mar walba waxaan dantaada ay ku jirto adduunyadaada iyo aakhiradaada hidaayadu waa shaamil way ballaaran tahay adduunyadaada iyo aakhiradaada dantaada halkay ku jirto inuu ilaahay subxaana watacaala kugu hadeeyo deetana si aad wixii aad bilaabayseed samaynaysay ee hidaayada ilaah subxana wataala kugu hadeynayay saad u gaadho waa sadaad waa meeshaad taagantahay ilaa meeshaad ka gaarayso marka nabiga sal slam tuu lahaa sadiduu waqaaribuu dhadhaweeya oo beegsada sadaadka waxa wey inaad shiliishka aad ku hayso ya ilaah subxana wataala marka wuxuu leeyahy sal slam mar walba weydiiso ilaah subxana wataala hidaayo iyo sadaad sidoo kale ilaah subxana wataala weydiiso cajsiga iyo kasliga iyo waxyaabaha la midka ah ilaah subxana wataala kaa dulqaado nabi maxamed salawatu rabbi wasalaamu calayhi maalin walba أذكار الصباح والمساء مر والبا كم دهان جرتي دعاء ديرada ahayd اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل دعاء ديرada waxa ugu horeeya العجز والكسل شيطان nafba in la xidhiidha marka mar walba inaad ducada Ilaahay subhanahu wa ta'ala aad kaashato waa isaga yaqaan meeshaad u socoto iyo waxa aad doonayso isaga ku hadeyn karaya ku fududeyn karaya kugu simi karaya waxa aad doonayso inaad gaadho iyo ugu dambeyn mar kasta asi kala wadaado naftaada u dulqaado be patient with yourself safarkan iyo wadadan iyo waxaan doonaysa inaad qabatana u dulqaado naftaadana u dulqaado laba jeer baad u baahan tahay inaad dulqaadato u dulqaado culeysyada u dulqaado caqabadaha u dulqaado waxyaabaha ka hor imanaya sidoo kalena naftaadu markasta ay ka dhacdo u dulqaado waayo waxaynu tilmaanay halkaa taagan tahay iyo meeshaad u socoto waa bridge consistency waa bridge-ka dul maraysay kan saad u samaysato marar badan baad ka dhacaysaa just come back by the way nobody noloshiisa ay dhan wal oo laga eego ay joogtaysan tahay qof walba meelaha jira noloshiisa ay joogtaysan tahay uu wax joogteeyo meelana waxa wey procrastination iyo dib u dhigasho ayuu kaga sugayaa ma jiro qof noloshiisa perfect ilaah subxana watacaala uma perfect qofka bini aadamku waxa weeye mar walba waxa weeye caqabad baa ka hor imanaya waad ka dhacaysaa dib u soo noqo dib haddana salaanka usoo kor aad bay arrintaa muhiim u tahay naftaada inaad u cudur daarto marar fara badan markaan 2 jeer 3 jeer 4 jeer wax ka dhacno haddana aan soo noqono haddana markaan aan ka yara dhacno waxaan soo aragnaa dad faashilinana marka qof wuxuu leeyahay akhriskan ku fashilmay wuxuu leeyahay inuu gymka ku fashilmay wuxuu leeyahay wixiina self grade ku fashilmay kan ku fashilmay inaan wax barto oo self study sameeyo ku fashilmay inuu qofku faashil buu isku arkaya walow xataa aanu kor u sheegayn kor u oranayn laakiin haddana isagii baa gudaha isu arkay inuu faashil yahay taasina waxay dilaysaa maaragtay identity-gaagii bay dilaysaa waxay dilaysaa self image-gaagii bay dilaysaa sawirkaad iska haysatay waxay badinaysaa negative thoughts-kii kugu imanayay maaragtay mar walba caqabada kugu noqonayay inaasaan kusoo koobaya muuqaalkan inta muuqaal kale iyo barnaamij kale ku kulmi doono khayraad fara badan baan rajeynayaa inta maan gaajaysan yahay guuli waa wali salaamu calaykum